aas-aaskiisu waa intaas. haddaa gabar tahay, haddaa wiil tahay, haddaa reer cusub haysatid, waa in lambar 1 inaa isbaratiin adii gabadhaadu, lambar 2 inaa ixtiraam samaysatiin, lambar 3 inaa wada sheekaysatiin oo waqti isla qaadatiin, inaan reerka been wax la yiraahdo soo gelin, gabadhaada aada been u sheegin, gabadhaaduna ayna been ku sheegin. waa aas-aaska qoys. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta igu xiran janaalkeena ku xiran, soo dhawaada, aadaa idii salaamayaa. waa anigio markaba isku soo noqonay, iyaantada aaday muhiim u tahay. waxaan rabaa inaan iraahdo guurka yacni guulaystay, waxyaalaha uu guurka guulaystay, qodobada tiirarka uu ku taagan yahay, waxyaalaha ka midka ah baan rabaa inaan maanta ka sheekeeyo haddii ilaahay ii idmo. qodobka koowaad, arrimaha qoyska markii aan ka hadlayno, ama qoysaska cusub ama kuwa isguursan raba, qodobka koowaad waa isbarasho. badanaa Soomaalidu isbarasho waxay u yaqaanaan, ama anagu aan yacni fahan ahaan aan u naqaanaa, hooyooyin haddaan nahay, gabdhaha yaryaroo hadda guursanaya xitaa xagee dhaxalka ka wataan, annagay naga wataan, because nolosha adiga hooyadu waxay soo martay gabadhuna soo maraysaa. isbarashada waxaa loo yaqaanaa qofkan waa kaa helay, waa ku jeclahay, waa ku rabaa, waa israbnaa bis. laakiin isbarashadu intaa way ka ballaaran tahay. in ay isbartaan labada dhalinyaro ee isguursanaya ama isguursaday, kow inay ka bilaabaan backgroundkooda gadaale, guriga uu ku soo koray qof walba ay waa lambarka koowaad oo dhalinyarada saameyn ku yeelanaya markay guri galaan, ay meel degaan, ee isla markiiba dhalinyaradu furiinka degdeg ah ay u qaataan. waayo waa in markiiba labada qof ee dhalinyaradaah ay isbartaan, qof walba ay backgroundkiisa iyo gurigooda iyo wuxuu soo ahaan jiray lambar 1 waa inay iska bartaan, si wax la iskugu keeno oo yacni labadaa qof ay u noqdaan laba qof oo meel dhexe iskugu yimaada. wixii adag oo qofkan gurigooda ka soo bartay, tanaasul lagu sameeyo, taqliimin lagu sameeyo, dulqaad lagu sameeyo, samir lagu sameeyo. in kow la isbarto horta waa lambar 1. in dulqaad uu meesha la iskula yimaado oo inta la wada fariista la yiraahdo waxaasaan ku xumahay ii dulqaado, waxaas iyo waxaas baa adna ku xun tahay, waan kuu dulqaadanaya. markii aad xanaaqsan tahay, inta la isla fariisto in la isla sheego oo la yiraahdo markii xanaaq yimaado, xanaaq wuu imaanayaa, markuu xanaaq yimaado in la isku dulqaato, in waqti badan la isla fariisto, la isla hadlo, waxay ku jirtaa dhismaha qoyskay lambar 1 ka tahay. in la isla hadlo oo wax la isku sheego oo waqti badan la isgeliyo, la isla hadlo. Soomaali ma taqaana in la isla hadlo. isla hadalka dhanba waxaan u naqaanaa waa kaa helay inay is yiraahdaan dhalinyaradu guri la isla tago, xiisihii dhammaado. bil ka bacdi xiisuhu waa dhammaanayaa. waxaa la rabaa derbi qoyskan celin karaa waa in la wada hadlo, waqti la isgeliyo, ixtiraam la isiiyo. wada hadalka waxaa ka soo baxaya in ixtiraam la isiiyo, in waqti la isla fariisto, qofka kaleete uu yacni ogaado meelaha uu daciifka ka yahay. waayo qof 100% ma jiro. waxyaalaha aas-aaska guriga uu ah waxaa ka mid ah ixtiraam. haddii ixtiraam la waayo, wax guriya iyo wax wada noolaashaa meeshaas ma ooleyso. ixtiraam in la helo, ee labada qof ixtiraam isku muujiyaan. ixtiraamku waxa waaye, maanta waxaa ka soo qaadaa wiilka ay isguursateen waxbaa ka qaldami kara, waa inaad ixtiraam siisaa. hadduu markaas xitaa oo dhagaysataa. badanaa wiilashu waxay gabdhuhu dumarku badanaa ku eedayaan inayn raggu dhagaysan. maanta iyadoo xanaaqsana u timid, waxaa laga yaabaa inaad fariisatid, waxaa la rabaa inaad samaysid, inaad fariisatid, aad tiraa soo fariiso oo aad dhageysatid. lownaba qofka aad dhageysatid markuu caraysan yahay waxay ka mid tahay ixtiraam. in ixtiraamka la helo
وآدي مهم وطه احترامك waxaa ku xiga ixtiraam meesha markii ixtiraam yimaado waa waxaas ixtiraamku wuxuu dhalayaa kalsooni haddii meesha ay timaado ixtiraamkii muxuu dhalay kalsooni haddii labadaa qof kalsooni isku qabaan waa feeri umbarti yacni kalsooni hadday meesha timaado tiirku waa sii adkaanaya qoyska in kalsooni la helo in aan qofka kala been u sheegin waxyaalaha reeraha dumiye waxaa ka mid a beenta haddii been ay meesha soo gasho kalsooni ma la arkayo kalsoonida meesha ka baxaysa in been aan la isku sheegin in qofka kale ixtiraam u sameeyo oo u ixtiraamo in waqti badan la isdiliyo la isla hadlo la isla sheekaysto soomaalida badanaa saa u badanahay sheeko ma lihin isla sheekaysi ma lihin reerka markay guri yimaadaan oo reerka la dhiso oo gurigii la geeyo waxayba aaminsan yihiin waaba isguursana wax sheeka meesha ma taalo laakiin sheekada runtahay markaasay bilaabataan in qofka kale uu yiraahdo waxaan jeclahay in la ixtiraamo waxaan jeclahay markii aan xanaaqsanahay in qaabkaas la ila dhaqmo waxaan jeclahay in aan been la ii sheegin waxaan jeclahay qofka kaleete inuu u sheego waxa uu qabto dhaqaalihiisa wuxuu yahay nolo akoonkiisa ma jirto Soomaali qofka kale islaantuna waxbay qarsataa ninkuna waxbuu qarsadaa si tuuga laba qof oo tuuga ah wax kala qarsanaysa maxay dhalayaan uba tuuga bay dhalayaan oo ayaguba wax kala qarinaya marka reerka isku kalsoon waxay dhalayaan ilmo kalsooni leh ilmo dhisan maskaxdoodu dhisan tahay kalsoonida ixtiraamka ilmo ixtiraam bulshada la dhex tagay ay dhalayaan ka dhex imaanaya inuu reerkaasi baraaro oo waaro baa meeshaas imaanaysa markii la helo kalsooni markii la helo ixtiraam markii la helo isla hadal iyo isla sheekaysi waqti la isla qaato markii la helo isbarasho in la isbarto qofka kala backgroundkiisa barto iyo familigooda uu barto waxay ku soo noolaan jiray qofkan wuxuu soo ahaan jiray qofba wuxuu ku soo noolaa family iscaaya family been isku sheega family aan wax ixtiraam ah ka jirin oo cayda hadday inta iscaayaan kala xanaaqaan hadda isku soo noqdaan hore iska wadanay qofba wuxuu ka yimid family aan la iscaayin la ixtiraamo been la isku sheegin rule iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo istixgelin iyo ixtiraamid iyo aabba iyo hooyo isku kalsoon oo ixtiraamaya baa qof ka yimid qofna family wareersan oo ka yimid labadaa qof marka inay isla qabsadaan maxaa keenay waqti dheer ay u baahan tahay inay labadaa dabci oo labadaa guri ka kala yimid inay isla qabtaan ay isku sheegaan runta in la isku sheego oo labada qof run isku sheegaan oo run isku soo guursadaan ee isbartaan ee isbarasho runa sameeyaan ee dulqaad sameeyaan ee ixtiraam sameeyaan waa aas-aaska qoyska guuleystay aas-aaskiisu waa intaas haddaa gabar tahay haddaa wiil tahay haddaa reer cusub haysatid waa in lambar 1 inaa isbaratiin adii gabadhaadu lambar 2 inaa ixtiraam samaysatiin lambar 3 inaa wada sheekaysatiin oo waqti isla qaadatiin inaan reerka been wax la yiraahdo soo gelin gabadhaada aad been u sheegin gabadhaaduna ayna been ku sheegin waa aas-aaska qoys najaxay ee baraaray ee ubad qurux badan soo saaraya markii haddaan Soomaalinahay loo baahan yahay inay naga dhaxlaan ubadkeena iyo ubadka la-eg iyo ubadka Soomaaliyeed oo dhan hooyooyin haddaan nahay in ubadka lagu barbaariyo kuwa reerahalana aan u sheegno haddii intaasoo qodob oo aan soo sheegay lagaa waayo waxba reer ma dhisaysid waxba reer uma haysid waa fashil iyo in maanta oo dhan dacwo iska noqotiin ama is haysatiin ama kala carartiin marka barnaamijkan qodobo badan aan ka samaynayaa baartiyo badan baartigan hadda intaana kusoo gudbinayaa dhalinyaro waxaa jirta guurka kala cabsanaya oo wiilal iyo gabdho ah
ayadana inaan ka hadlaan rabaa haddii ilaahay idmo dhammaantiin waa idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmat